kusoo dhowow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan saar subscribe notification-kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. cashkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa vocabulary 2 waa ereyada qaybtoodii labaad ee ka biloomaya xarafka e markaa ama vocabulary ee ka biloomaya. waxaan soo qaadanay qaybta hore, qaybtan waa qaybta labaad insha Allah. waa anigoo Khalid Abdiraxmaan Maxamed, halkana waa Somali Online Academy. la soco ereyadoo dhameystiran. haddaba haddaan soo daaro qaybta horena waxaad ka heli kartaa description-ka muuqaalkan ama calaamada sare ee halka sare ka soo baxaysa insha Allah. so halka ka daawada. okay koobaad waxa weeyaan abandoned, waxa weeyaan ka haajiray ama ka tagay. qof meel ka haajiray ama ka tagay weeyaan. abandoned waa ka haajirid, abandoned waa ka haajiray weeyaan ama ka tagay. abandoned waa ka haajiray weeyaan. arrive waa ereyga labaad ee ku xiga. waxa weeyaan arrive waa imaansho. arrive waxa weeyaan imaansho. arrive waxa imaansho weeyaan. dad qof meel yimaado weeyaan ama dad meel yimaadaan. achieve waxa weeyaan qorsheyn weeyaan ama hami ayaa la yiraahdaa in qofku wax ku hamiyo ama wax qorsheysto weeyaan. achieve waxa qorsheyn. achievement waa maqasho qorshayaal. achieve waa qorsheyn markaa. among waa ku dhex jira weeyaan. wax shay ama dad qof ku dhex jira weeyaan. among waa ku dhex jira ama ka tirsan weeyaan. among waa ka tirsan ama ku dhex jira. among the people baad maqashaa qof dadka ku dhex jira. aid waxa weeyaan caawin ama kalkaalin weeyaan. gargaar bay noqotaa markaa. aid waa gargaar ama waxa weeyaan gargaar ama caawin weeyaan marka qof xanuunsanayo kala. attack waa weerar. attack waxa weerar salaam marka qof shay soo weerar ama xayawaan soo weerar weeyaan. attack waa weerar. attack waa weerar. all right waa yahay weeyaan ama hagaag. waa hagaag ama waa yahay. okay waa markuu qofku markaa ku raacsan yahay hadalka waa sax. ancient waxa weeyaan reermi ama wax qadiimi ah weeyaan. ancient waa qadiimi ama reermi baan oran karnaa ama qadiimi wada. ancient waa wax qadiimi ah ama xilli hore ah. agree waxa weeyaan ku raacid. agree waxa weeyaan ku raacid salaamad qof wax ku raacdo ama dad wax kugu raaca weeyaan. agree marka waa ku raacid ama aqbalid weeyaan. agree waa ku raacid. awfu away waxa weeyaan ka durugsan ama ka fog weeyaan ama ka fogaansho. away waa ka fogaansho ama ka tegid, labada way noqotaa. away ka tegid ama ka fogaansho. animals waa xayawaan. animals waa xayawaan. animals waa xayawaano ama xayawaan weeyaan. animal waa xayawaan, animals waa xayawaano weeyaan. ereyga ku xiga waa maxay? waa age, da weeyaan. age waa da. age waa da. age waa da marka ama cimriga qofka weeyaan. age waxa weeyaan da bay noqonaysaa ama cimri. allowed waa kor u qaadid, in qofku codkiisa kor u qaado ama hadalkiisa uu kor u qaado ama uu kor wax u akhriyo weeyaan. allowed waa kor u akhrin ama kor u qaadid codka qofku inuu kor u qaado. allow waa u ogolaansho. allow waa u ogolaansho. tusaale ahaan markaad mobilkaaga smart waxaad rabtaa application-kan allow this app to use your contact u ogolow barnaamijkan inuu maamulo lambaradaada waxyaabahaas. marka alle waxaad ogolaansho caadiga ha noqdo ama mid kale. affect waa saameyn weeyaan. affect waa saameyn. affect waxa ay saameyn weeyaan. affect waa saameyn. about waa ku saabsan. about waa ku saabsan. about waxa weeyaan ku saabsan ama about waa wax ku saabsan weeyaan marka salaam qof ku saabsan ama shay ku saabsan weeyaan. about waa ku saabsan. afternoon waa galabnimad. afternoon waxa weeyaan galabnimad ama cadeed markii liiqa sii dhigaysa weeyaan baa. afternoon waa galabnimadkii. absent waa habsan ama habsan weeyaan. qof habsana oo meel ka daahay weeyaan ama ka soo daahid. absent waa habsan ama waa habsan. absent waa habsan weeyaan. advantage waxa faa'iido. advantage waa faa'iido weeyaan marka wax faa'iido lagu qabo weeyaan marka. disadvantage waa marka cagsigeedii wax faa'iido darro. advantage waa faa'iido. advantage waa faa'iido. alphabet waa xarafo marka wax maqashaa xuruufta luqadda Ingiriiska. English alphabet marka waa xuruuf weeyaan marka. apart waa ka tirsan weeyaan ama kamid ah. apart waa wax kamid ah ama waxay noqotaa sidoo kale meel ka fog. apart ka tirsan ka fog labada way noqotaa. approve waa ansixin. tusaale marka dawladda heshiis ansixiso ama qof wax ansixiyo weeyaan. approve waa ansixin. approve waa ansixin ayaa leedahay. approve waxa weeyaan ansixin.
attract waa soo jiidasho xagga tiibad ku dari doonta. Attract waa soo jiidasho, qof soo jiidasho leh ama dhar soo jiidasho leh ama shay soo jiidasho leh. Attract waa soo jiidasho. Attract waa soo jiidasho. Against waxa weeyaan ka soo horjeeda ama lid ku ah. Against waa lid ku ah ama cagsi ku ah. Against waa wax shay lid ku ah ama qof lid ku ah. Agency waa wakaalad weeyaan ama hay'ad. Agency waa wakaalad. Agent wuxuu noqonayaa wakiilkii. Agent waa wakaalad ama hay'ad weeyaan. Agent waa wakaalad ama hay'ad. Actively waxa weeyaan firfircoon. Actively soo qof firfircoon oo abday firfircoon. Actively waa firfircoon leh ama firfircoon weeyaan. Actively waa wax firfircoon leh ama qof firfircoon leh. Apartment waa dhisme ama guri weeyaan. Apartment waa dhismaha qof gurigi ama dhisme weeyaan. Apartment waa dhisme ama aqal. Anywhere waa meel kaste. Anywhere waa meel kaste. Meel kaste weeyaan marka anywhere waa meel kaste. Anywhere waa meel kaste ama goob kaste. Allow for waxa weeyaan ogolaansho. Allow for waa ogolaanshiyo ama ogolaansho siin weeyaan. Allow for waa ogolaansho. Allow for waa ogolaansho. Ereyga hore ma la macna tahay. Allow in soo qaadanay imika. Argument waa muran. Argument waa muran. Argument waa muran. Laba qof isla murmay marka talahaan. Absorb waxa weeyaan soo nuugitaan. Geedku wuxuu soo nuugaa biyaha marka taasada absorb waa soo nuugitaan ama lead ama iftiin wax la soo nuugay weeyaan. Marka absorb waa soo nuugitaan. Absorb waa soo nuugitaan. Armed waxa hubeysan. Armed waxa weeyaan wax dad ama askar hubeysan weeyaan. Marka armed waa hubeysan. Arm waa ciidanka army marka waa wax hubeysan ama ciidamaysan way qalabeysan. Average waxa weeyaan average waxa weeyaan qiimo. Average waa qiimeyn ama qiimo isku celcelis ama qiimo wax cabirid weeyaan marka noqonaysa. Appeal waa ansixin weeyaan. Appeal waa ansixin. Appeal waa ansixin weeyaan marka. Appeal waa ansixin. Anisin waa shay kaste. Anisin waa shay kaste. Anisin waa wax kaste ama shay kaste. Anisin waa shay kaste ama waa wax kaste. Ereyga ku xiga waa maxay? Waa aim waa ujeedo. Aim waa ujeedo. Aim waa ujeedada qofka ama qasadkiisa weeyaan. Aim waa ujeedo. Aim waxaada ujeedo. Aware waxa weeyaan ka warqaba ama la socda. Aware waa la socosho ama ka warqabid weeyaan. Aware waa la socosho ama ka warqabid ay noqonaysaa. Ability waxa weeyaan awood. Ability waa awood. Ability waa awood marka awood weeyaan. Ability waxa weeyaan awood ayaa la yiraahdaa. Alcohol wuxuu noqonayaa khamri. Alcohol waa khamri weeyaan ama khamro. Alcohol waa khamriga ama khamrada. Alcohol waa khamriga ama khamrada. Annual waxa weeyaan wax sanadla ama sanad kasta la qabto. Annual waa sanadla. Saxan jira xaflado sanadlayaal ayaa jira marka taasayda annual wax sanadla ah weeyaan. Annual anniversary maqashay xafladii sanadlaha ahayd. Allied waxa weeyaan isbahaysi. Allied waa isbahaysi. Isbahaysiga reer galbeedka maqata Western Alliance. Isbahaysiga reer galbeedka marka allied waxa weeyaan isbahaysi. Apply-na waa ansixin. Apply waa ansixin. Halkaas inuu joogi doono casharku maanta. Apply iyo ansixin. Shan kun doona casharka waxaan ka heli asaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum.